yar oo dareen muslimnimada qalbigaaga ma ku jirtaa in yar oo Soomaalinimada ma leedahay ha dhaafin walaal u ducee walaalkeen waxa uu kaaga baahan yahay waa duco waxa lagu jiraa bil barakaysan waxa laga yaabaa ducadaada inuu Ilaahay u aqbalo waa wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo walaalkeena waxaad arkaysaa dhibaatada hayso xitaa indhahaagu ma fiirin karayaan oo qof waliba oo qalbi naxale waa uu argagaxaya xaqiiqdii caafimaadka waa waxyaalaha ugu muhiimsan nolosha bini'aadamka markii laga qaada ayaad ogaanaysaa caafimaadka inuu yahay shay muhiim ah sidoo kale xorriyadda ayaa iyaduna shay muhiim ah iyaduna maalinka laga qaada ayaad ogaanaysaa waxa laga yaabaa in badan oo inaga mid ah in dhowr sano kadib oo hal maalin oo hargab ku dhaca ama duray xumad yar ama qandho yar baa laga yaabaa inay qabato laakiin maalinka ay qabato weligood ay sheegaan dadka qaarna dhibaato iyo xanuun ayay la nool yihiin haddii Ilaahay caafimaad ku siiyay Allah u mahadceli walaalka xanuunsan u duceey in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xanuunka caafimaad ugu bedelo wiilkan dhalinyarada arkaysaan waa wiil Soomaaliyeed bartiisa Facebook ayuu soo geliyay muuqaalkani wuxuuna ku soo qoray sakaraad ayaa nahay waxa suurtagal ah inaad dhinto ee walaalayaal ii soo duceeya qof walba oo inaga mid ah wuu dhimanayaa lamana kala naf weyno laakiin walaalka xanuunsan hadii aad wax kala u qaban karayn hadii aanan wax kala u tarayn hadii aanan wax kala ku soo kordhin karayn ducada ha ka bakhiilin waxa laga yaabaa ducaad adiga u duceysay in uu Ilaahay ka aqbalo oo saacad mustajaaba ducadaada lagu aadiyo ayaa suurtagal ah waxa lagu jiraa bil barakaysan waxaana foodo nagu soo haya Ramadaan waxa suurtagal ah in ducadaada Ilaahay u aqbalo si niyad ah oo qalbiyana ugu duceey wiilka Soomaaliyeed ee dhalinyarada iyo inta kale ee Soomaalida xanuunsan dhabtii muuqaalkan anigu markaan arkay si ayaan u argagaxay oo xitaa waan eegi waayay oo waan fiirin waayay in badan ayaan u duceeyay Ilaahay ha u aqbalo adigana u duceey waxaan isiri sidoo kale walaalaha kale ee Soomaaliyeed ducadooda waa muhiim oo wax weyn ayaa laga yaabaa inay u qabato waayo ducada qofka muslimka ah hadii mid aan laga aqbalin waxa laga yaabaa mid kale in laga aqbalo waxa laga yaabaa taada inuu Ilaahay aqbalo u duceey ducadana ha ka xasdin Allahna u mahadceli hadii adigoo caafimaad qabo in aad seexato aad soo toosto socoto waxna aad qabsanayso dunidan aad arkaysa aan dul joogno qofba si ayuu u nool yahay qofba marxalad ayuu marayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuu awoodaa dadka oo dhan inuu caafimaad wada siiyo oo wax lama ahan laakiin inta xanuunsan inta caafimaad kale ayaa loogu talagalay in ay ku cibra qaataan inta sidoo kale curyaanka inta cagaha qabtay ordaysa ayaa loogu talagalay ayaguna inay ku cibra qaataan qofba si ayuu imtixaanka u marayaa oo qofba maalin bay qabsanaysaa aan u duceyno walaalkeen si qalbiyana niyad ah Ilaahay dartii ah aynu ugu duceyno